السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أصحاب تخالقة إن وصل هذا ولكن عسى مستر كانت توصل لسعتنا وشان كينا عسى مستر أوفيشال فضلا هدي أدنو عصب تهي ويتهم مركو هو رسل نصب وخنا سبسكرايب صار فيديو من لايك صار إنت شو فيديوكم مع سنتين إن أصحاب تخالقة قرأ اللقطة صدق دنبلا ما فرتن بدي وح مسوق يوتيوب وح مسوق دقن واير مشغول سنة المركز أصحاب تمان باك باك maxaa la soo laabtay de asxaabta marka barnaamijka maanta waxaan meesha soo fadhiistay halkan waxaan rabaa inaan ka hadlo team isma dhaanto big bro iyo asxaabtiisa oo shalay safreen inta Nairobi ka tageen ay magaalada Hargeysa ay ku degeen kadib marka maxaa dhaxay in xabsiga loo taxaabo teamkaas team isma dhaanto big bro iyo asxaabtiisa ay kamid yihiin oo ay damacsanaayeen inay show halkaas ku qabtaan Hargeysa iyo YouTuber Hargeysa waxay doonayeen inay halkaas show ku qabtaan marka waxaa dhacday in xabsiga lagu taxaabo teamkaas wallahi sababta jirta xaqiiqda kulay ma ogin laakiin sidaan u arkay oo aan u maqlay inaysan wadanin warqadda caafimaadka maxaa yeelay beriyadan idinba waa la socotiin cudurkan coronavirus laho adduunka ku faafay marka qof walba waxaa laga doonayaa inuu warqadaas uu sito uu wato warqadaas marka sidaan u maqlay warqadaas maysan wadanin sababtaas xabsiga loo geliyay oo cag loo karantiine la xagga loo karantiinay calaba xabsiga ku jireen laakiin sidaan u maqlay haddana waa subaxdiiba waa fasaxa aan maqlay wallahi horta waan ka xumahay maxaa yeelay dadkaas waa dadka aan ugu xirnahay oo aan mar walba daawado hata safartooda ani waa la socday marka waan arkay iyagoo bixi rabaan Hargeysa horta waan ku farxay maxaa yeelay show inta ay ku qabteen inay rabeen waa arrin farxad leh laakiin markaan saas maqlay haddana waan ka xumaaday horta sidee noqon doonto ilaahu baa og waan arki doonaa kulleed wax weyn maaha warqadaas wax weyn maaha marka asxaabta intaasaan rabay inaan idinla wadaago sidaas iyo nabadgelyo wax kale la soo kordhana waan la soo wadaagi doonaa insha Allah marka sidaas waan idinku tagaa fi amaanillah